wax alla iyo wixii xafiiska golaha sare ee ahlusunna wal jamaaca soo gaara oo khasaara mas'uuliyaddeeda waxa qaadaya madaxweynaha hore xasan sheekh maxamuud waxa qaadaya taliyaha hay'adda nisa mahad salaad waxa qaadaya gudoomiyaha gobolka banaadir nuur ninka la yiraahdo muungaab oo hadda cagafka geliyo haya waxaan rabaa in aan la wadaago dhammaan ummadda Soomaaliyeed in xafiiskii golaha sare ee ahlusunna wal jamaaca maalintii saddexaad ciidamada dawladdu ay saaran yihiin anna ay bililqaysteen isla markaana waxay yihiin kaliya kutub iyo dokumentiyo iyo dharkaygii iyo waxa yeelay كمبيوتر ay leedahay hay'adda Niro hadii laga reebo hal computer leh hadda waxa soo gaartay taas hore u sheegay oo rabaa in ummadda la wadaago saambaagi xafiiska hal sano 6 bilood ka hor aan dhisnay markii xafiiska aan fureynay oo dawladdu wax kharash ah inaan ugu siinin oo la fahayn aan ku ilaalinaynay maadaama dagaalka khawaarijta wax weyn aan dadkii hormuudka ka ahay aan haynay la dagaalanka argagixisada in hadda ay dawladdu ka tarbiil gelinayso ay soo gaartay ay duminayso taasoo ujeedadoodu ay tahay xogta birahan ay helaynana ay tilmaamayso in ay rabto in ay cadowga si sahal ay nagu soo gaaraan si ay waxyeelo noo gaarsiiyaan waxaan rabaa marka inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed wax alla iyo wixii xafiiska golaha sare ee ahlusunna wal jamaaca soo gaara oo khasaara mas'uuliyaddeeda waxa qaadaya madaxweynaha hore xasan sheekh maxamuud waxa qaadaya taliyaha hay'adda nisa mahad salaad waxa qaadaya gudoomiyaha gobolka banaadir nuur ninka la yiraahdo muungaab oo hadda cagafka geliyo haya iyo saraakiisha ay amreen waxa naga dhaxeeya rag aan sheegayo iyo aniga ahlusunna ahaan oo u sheega Soomaalida si cad iyo caalamkaba khilaaf qoto dheer oo ku saleysan aqeedada rag aan la dagaalamayno oo khawaarijta ay ku caqiido yihiin shabaabkay ku caqiido yihiin waa niman wahabiye ah waa niman salafiye ah ujeedadoodna ay tahay dalka diintiisa dadkiisa iyo xaqaradkiisa inay baabi'iyaan aniga wax weyn uma arko maadaama taliyihii ciidanka qalabka sida General Oduway oo 3 joor taliye soo noqday khawaarijta la dagaalay la ogyahay madaxweyne Sheekh Shariif oo dalka khawaarijta ka saaro waxa ka qabtay la ogyahay ra'iisul wasaare Ali Xasan Khayre intaasba in drone lagu garaaco oo la dilo la go'aanshay iyo dhaqankii Soomaaliyeed waa sidii waxaan rabaa kaliya in dagaalku uu yahay laba jiho ina u sheego ummadda mid waxa waaye dagaalka oo wado madaxweyne hore Xasan Sheekh waa midkaas aqeedada ku dhisan oo 4 sano xajka ugu baaqanaynay maadaama wasaaradii ay u dhibeen ninkii aasaasay shabaabka oo Muxtaar Roobo ahaa ولنا آمسان عقيدة شبابك رجعنا إيهين مع المهدي وقتهن شبابك وكيمت ما صارت وقتهن وشباب نكلا إلى مجاب وشباب حسن الشيخ وهابي نئه وهابي أو عقيدين سو وهابي إيتاي وعدكي صوت دوان عن هينو ولبا أسيقو أمانة محمد عبد الوهاب أسيقو أمانة عن هينو وحيس لما عقيدة سيكون سيهين ذلك Soomaaliya khatar uu ku jiray haddana khatar uu ku jiraa mid waa midaas mid caadifad diini ay haysa waxa oo sida gaarka xafiiska golaha sare loogu beegsanayo caadifada labaad waxa waaye mid shalay maleeshiyaadkii beelaha oo macaawisleydii beelaha sida gaarka ah oo Xasan Sheekh ilaa loo howlgeliyo ee qaraabadu ay keentay kuwii agoorka ee madaxweyne Sheekh Shariif xildhibaanka uu ahaa iyadoo Sheekh Shariif laga urinayo xalay maartay ahu ilaa 130 kilomitir loo sii raacdiisanayay lagu dalbaday in beeradaar lagu duqeeyo lagu dalbaday haddana wali in la soo maartay ahu idoo hub qibeel kasta hub ka haysato in beesha agoor hubka laga dhigo idoo Sheekh Shariif laga urinayo ujeedaduna ay tahay Sheekh Soomow iyo Sheekh Shariif walaalo waayay iyaduna waa caadifad oo qabali ah oo Xasan horkacayo labadaas caadifadooda u sababa waana ka guuleysanaynaa laakiin waa in dadku ay ogaadaan dagaalka nagu socda xaqiiqadiisa wax alla iyo wixii dokumenti wax alla iyo wixii dhar ah waxa hanti ah ee meeshaas galay gurigaas macna lacag ku badan 3 guri lacag ku dhow nus milyan ayaa ku baxday intaasoo qalabkooda iyo maalgelintooda iyo kiiladooda iyo maamulkooda mas'uuliyaddeeda xaqadaya
xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dalka wax badan ay intaas ka badan ma ka sii dhahayo waxaa la qaadaya mahasalaad waxaa la qaadaya askarta uu ku adeeganayo sida muungaab iyo macallimahdi iyo wixii la cid maala sidaas ogaadha Soomaaliya